iimaanku shaygu qiraa lagu qabooba in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha laysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. alxamdu lilah wahanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabih waman waalaah uma amaa bacd. suuraة اlbaqara aynu ka bilaabayna aayadda 102. qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi watabacuu waxay raaceen nimankii yuhuud ahaa maa tatlu shayaaiin shayaadiintu wixii ay akhriyayeen ama raacayeen calaa mulki sulaymaana calaa cahdi mulki sulaymaan wakhtigii madaxtinimada uu hayay nebi sulaymaan. wamaa kafara sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin oo sixirle ma ahayn walaakina shayaaiina kafaruu shayaadiintaase gaaloobay waxay ku gaaloobeenna yucallimuuna annaasa sixr dadkay sixirka waxaa la ydhaha barayeen wamaa shayna way barayeen shayaadiintu dadka unzila calى اlmalakayn labada malag lagu soo dejiyey ee loo soo dhiibee lasoo baray labadaa malag bibaabila meesha la yidhaahdo ayaa lagu soo dejiyey haaruuta wa maaruut labadaa magac baa la kala odhanaya. wamaa yucallimaani min axad labadaa malag qof may baraynin sixirka xataa yaquulaa jeer ay yidhaahdaan innamaa naxnu fitnatu war annagu tijaabo iyo imtixaan iyo balaayaanu nahay macnaha dadka wax lagu imtixaanayaanu nahay waxaanaanu bidin barayna waa laydinku imtixaanayaa falaa takfurha gaaloobin digniintaasay u raacinayeen fayatacallamuuna minhumaa dadku labadan malag waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi waxay ku kala kaxayn karaan bayna almar'i wa zawji ninka iyo xaaskiisa. wamaa hum dadku may ahaanin sixirlayaashu sixirlayaasha sixirkaa ku dhaqmaa may ahaanin bidaarina bihi sixirkaa kuwa ku dhibaya min axadin qofnaba ilaa biidn illaah ilaahay oo qadaro ogolaada mooyaane. wayatacallamuuna waxay dadku baranayeen dadka sixirka isticmaalaa maa yaduruhum wax dhibayo oo walaa yanfacuhum aan dheefba lahayn. walaqad calimuu dhabnimo waxay ogaadeen kuwa sixirka isticmaalaa laman ishtaraahu qofka bedel qaata ee diinta ka taga sixir bedel qaata maa lahu inaanay u sugnaanin fi laakhirati aakhire inaanu ku lahayn min khalaaqin wax nasiiba taa kutubta ka heleenoo horey u hayeen. walabiisa ma shay baa aada u fool xumaaday buu ilahay sharow bihi anfusahum naftooda ay u iibsadeen ay u bedel qaateen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan sixir cidda bedel qaadatay ciddaasaa u liidatay hadday garanayaan way iska dayn lahaayeen. walow annahum haddii dadkaa sixirka bartay aamanuu ilaahay rumayn lahaayeen wataqow ay ilaahay ka cabsan lahaayeen oo ay cabsigiyay baan ku bedeli lahaayeen ay ku dhaqmi lahaayeen lamahuubatun abaalmarin cinda allaahi lamahuubatun min cindi illaah abaalmarin ilaahay agtiisa ka timid oo uu siin lahaabaa khayrun u wanaagsanaan lahay oo iimaankii alla ka cabsiga ka heli lahaayeen. low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan wayse garan waayeen may calfan. labada aayadood waxay noo cadcadaynayaan cuduradii ku dhacay yuhuudda iyo dhaqamadoodii xumaa. dhaqamadooda xun waxaa ka mid ahaa inay isticmaali jireen waxa la ydhaha sixirka. waxay ka tegeen diintii waa inagaa soo aragno kitaabkii towraad iyo kii qur-aanka labadaba dabaday ka tuureen. waxaa la isweydiinayaa haddaba nimankii maxay ku bedesheen sixir bay ku bedesheen. warku waa kaa nasiib darrana waxay ku dhacday dee qofka diin la-aan ku bedeshay diintii ilaahay halku ku dambeeyey waa kaa ilaahay labada aayadood ku caddeeyey. sababtay ku soo degeen aayaadku waxay ahayd
nimanka yahuudda ahi waxay maqleen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ambiyada uu ka sheekaynaya ama kaga warramaya qur-aanka ku daray nebi sulaymaan markaasa waxay idhaha waryaalaheen war ninka wax laga sugayo sulaymaankii sixirlahaa buu nebiyada ku daray qaar baa caynkaa yidhi aayaddanaa soo degtay aayaddani markaa waxay caddaysay nebi sulaymaan inaanu sixirla ahayn laakiin wakhtigii isagu madaxda ahaa waxaa sixirka la idhaahdo shayaadiintu ay dadka ku dhex baahiyeen dad badanina isticmaaleen si ilaahay uu u kala baro dadka sixirka iyo mucjisada ayuu soo dejiyey laba malag oo haaruut iyo maaruut la idhaahdo meesha ciraaq ku taalle baabil la idhaahdana uu ku soo dejiyey labadaa malag waxa ilaahay uu soo baray aqoon u lahaayeen sixirka dadkay sixirka uga digayeenay barayeen intay baraan bay uga digayeen xigmadda looga jeedaana waxay ahayd loo barayay sharka jacaylkiisa iyo raaciddiisa ma ahayna sharka in laga feejignaado xigmaddu taasay ahayd way hadalkoodaad ka garanaysa qofka way u sheegayaan waxaasi waa sixirkii mucjisana ma aha diinna ma aha annagu bariddaanu ku baraynaana waa imtixaan iska ilaaliyo ha gaaloobin waa lagu gaaloobaa waxaanu ku tusnay iska ilaali sharkana waxa iska ilaaliya ka yaqaana kii aan aqoonin in loo dhuubaabaa laga yaabaaba oo daf la siiyo sidaa daraaddeed baa nimankii fircoon wakhtigii dambe rumeeyey sixirlayaasha ahaa maxay u rumeeyeen dee sixirkii bay yaqaaneen iyagu waxay arkeen markaa mucjisada nebi muuse wataa inaanay sixir ahayn khubaradii sixirka oo dhan baa isu yimi waarkani miyuu yahay sixirkaynu haynay noocyadiisa kala duwan maya de haddaba waa mucjise aan rumayno laakiin dadkii fircoon uu watee kalean sixirka garanaynin may rumaynin leanna uu iskaga jiray oo waxay kala garan lahaayeen mucjisada iyo sixirka waa ka cumar lahaa macaanka islaamka waxa garanaya qofka jaahiliye yaqaano diinta macaankeeda waxa garanaya sixirka iyo khuraafaadka iyo shacwadada qofka xumaantiisa yaqaano marka digniintaasayaan labada malag qisooyin badan baa halkan ku soo aroora kutubaha tafsiirka qaarkood ay qorayaan kutubtii reer banu israa'iil laga soo qoray waxyaabo rusushana sharaf dhac ku ah malaa'igtana sharaf dhac ku ah ayaa ku qoran laakiin culimada muxaqiqiinta ahi way ka digaan sida ibnu kathiir oo kale raximahullah qisaduna waxay ku saxsan tahay mar haddaan xadiid sugan oo saxiix ah oo sharxayaa jirin in lagu daysto un intan daliilka ku soo aroortay way nagu filan tahay intan ku soo aroortay ilaahay kalaamkiisa way nagu filan intaa daahirkeeduna waa inta aynu arkayno inaanu nebi sulaymaan sixirla ahayn inaan malaa'igtu sixirlayaal ahayn malaa'igtana xigmadda loogu soo diray dadkani ay ahayd digniin ay uga digayaan sixirka intay tusaan una sheegayeen in laguba gaaloobayaba laakiin sixirlayaashii iyo nimankii kale iyo shayaadiintii isxambaarka ahaa ee wada socday ayaa waxaan walaaqaya oo isticmaalaya oo ku gaaloobay sababta malaa'igta loo soo dirayna wakhtigaa waxaabuu noqdayba sixirkii wax lagu tartamo oo dadka qaarkood mucjiso ku sheegtaanoo mucjisadii iyo sixirkii baa la kala garan waayo saasaa ilaahay ugu kala saaray subxaana wa tacaala qisadu saasay markaa sax ku noqonaysaa dib haddaynu ugu noqonno ereyada watabacu way raaceen wey macnaheeduna markaa waxa weeye dadka sixirka had iyo jeer isticmaalaa waa dadka diinta ilaahay ka tegey oo laba isma qabanayaan in diinta la raacay iyo in sixir la raaco dadka sixirka caadaysta baxiga aynu ka soo qornay waynu xusi doonaaye insha allahu waa dadka diin la-aanta ku sugan haddaad aragta ummad sixirka isticmaalaysa ama lagu dhex wadwado diintiibay ka tegeen wey sida kuwan oo kale maa tatlu shayaaiin shayaaiintiibaa akhriyaya ama raacayay labada ay noqon karta calaa mulki sulaymaan wakhtiguu nebi sulaymaan madaxda ahaa ee milkiga uu hayo nebina wuu ahaa melikna wuu ahaa boqorna wuu ahaa rasuulna wuu ahaa waa ina daawuud oo qur-aanku marar badan sida suuratu namli iyo ilaahay uu ku tilmaamay waxyaabuhuu siiyey sixirlayaashu dadka waxay ku harowsan jireen ama ku duufsanayeen waar sulaymaan laftiisuba waxaan jin iyo insiba iyo shimbiraba ay ugu hoggaansanyiin waa sixirka eh dee sixirka un barta wamaa kafara sulaymaan ma gaaloobin sida ay sheegeen yuhuuddan yidhi sulaymaan baa sixir la aha oo sixir dadka dee ma baraynin isagu waxay halkaa aad ku aragtay in sixirka lagu gaaloobay intaasi caddaysay sulaymaan ma gaaloobinoo sixir ma baran dadkana ma barayn walaakina shayaaiina kafaruu baaba caddaysay
shayaadiintaa gaaloobay oo yucallimuuna annaasa sixr sixirkay barayeen marka shaydaan iyo kii raacay ee sixir bartay way gaaloobeen labaduba wamaa unzila cala almalakayni labada malag wixii lagu soo dejiyey loo soo dhiibayna way barayeen bibaabila meesha la idhaa baa lagu soo dejiyey haaruut iyo maaruut waa cadfu bayaan ayaa la odhan jiray wamaa yucallimaani min axadin qofna wax may barayn layrkaa cas iyo digniintaa jeer ay ogeysiyaana ku shidaan qofna wax may baraynin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitna ilaa ay yidhahdaan war fitnaamna waxaanu kuu sheegayna inaan ku barayna waa fitno waa fitno sixirkuna waa fitno siyaabo wax u fitneeyo waynu arki insha allah waa lagu fitnoobaa fitnada waxa u weynta diinta kaaga dhacda kol haddaa ilaahay isa seegtaan fitno ka weyni ma jiro dadkaaga iyo dunyadaadood weydo waxaa ka daran diintood weydo waa fitnada weyn cumar binu khadaab wuxuu leeyahy aniga fitnada waxba ima yeesho laba sababoodba ta hore weeyaane diinta igagama dhacdo meelaha kaloon baa iga dhacda ilahay diintii u ilaaliyo dee fitnadu markay dadka kale ku dhacday iyo markay cumar ku dhacdana waa isku mid ee fitnadu ii goonii dee ma jirto inamaa naxnu fitna falaa takfur saasay u sheegayeen sixirku hadda xumaantuu leeyay buu markaa ilaahay u baxay qisadaa markuu xaggeeda hore saxay waa mafhuumun yanbagii aw yajibu an yusaxax aragti qaldanayd buu ilaahay toosiyey subxaana wa tacaala yuhuudduna dadka si qalada ay ugu sheegayeen shayaadiintana ay beri yeelayeen awliyada ilaahayna ay dhaliilayeen fayatacalamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji sixirlayaashu waxay dadka ka baran labada malag ka baranayeen waxay ku kala kaxayn karaan nin iyo xaaski marka halkaana waxay aayaddu inoogu tilmaantay ana asixra lahu anwaacun wa aqsaam sixirkaa xumi inuu noocyo iyo qayba leeyahy aada u fara badanoo ilaa 10 nooca ma rabna inaynu sharaxnayno waxaa u banbaxno ee guud ahaantiiba waa wax dee fitno ahoo in la duuduubo la diido un mooyaane qaybihiisa waxaa ka mida sixirka loo yaqaan sixru tafriiq oo kala geyn in iyo xaaski ayaa la kala geynaya oo labadii qof ee isjeclaa ayaa wax laga dhex samaynayaa kadibna way isnacayaan laakiin taas waa sababtii un sababtu ma hirgasho haddaanu ilaahay doonayn iyadoo sababta la yimaadeen tafriiq iyo kala geynta ayaa hadday doonaysa fashilmaysa ilaahay baa taa sheegay oo waxau idhi wamaa hum bidaarina bihi min axad ilaa biidn illaah manay ahaanin sixirlayaashu kuwa ku dhibaya qofka haddaanu ilaahay doonin iminka haddii hub lagu soo qaato la doono in lagugu dilo toori ama rasaas oonu ilaahay doonaynin inuu kugu dilo miyaad ku dhimanaysa kuma dhimanaysa way ku hareer maraysaa meeshii lagaaga hagaajiyey bay weydaanaysaa qaar la toogtayoo mid noole ka soo dhex kacay soomaad arag iska dhababaceeye ilaahay baan doonaya inuu dhinto nebi ambiyada ka midaba dabkii ugu weynaabaa lagu ridayoo wuu ka dhex dhaqaajiyey sababtu haddaanu ilaahay doonaynin inuu fuliyo ma socoto marka ha aaminin sixir kastoo la sameeyaa inuu hirgala inta ugu badan uu fashilmaabaa fashal buu u badan yahay waxay sixirka walaa yuflixu saaxiru xayu ataa sixirle ma liibaana buu ilaahay wuxuu samaynayana kuma guulaysto isaguna guuli ka dheer aamin ilaahay subxaana wa tacaala sababtooda ilaahay baa fashilinaya wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay sheegaysaa waxay baranayeen sixirlayaashu wax dhibayoon dheef lahayn culumta qaar baa nafci unu yaala cilmiga la barto qayb ka midihi waxay leedahay un faa'iido waa cilmiga samaawiga ah ee qur-aanka iyo xadiidka waa wada faa'iida oo wax khasaara iyo xunba ma leh cilmiga qayb ka midihina dhibna wuu leeyahy dheefna wuu leeyahy waa cilmiga adduunyada lagu dhaqdhaqaajiyo manaafic iyo madaari labadaba wuu leeyahy cilmiga maadiga ah de haddaad maadi keliya baratoo diinta ka tagtood cibaadada ka tagta ma dhib buu ku yeeshay mise dheef waxaad u waarantay inaad xisaab iyo biology iyo physics iyo chemistry intaa liqliqdood xafido ood wax ku cununtood ku shaqaysood dadka barto diin iyo ilaahay iyo iimaanna waad uga tagto maxay sheegaysaa cilmigaasi muxuu sheegayaa waxalla wuxuu sheegayaa ma jiro waa dhib uun qaybtiisii dhibtaad qaadato cilmigaa maadiga haddii loogu adeego dalka iyo dadka iyo ummadoo anficiisa la keena ilaahayna xaqiisa la siiyo nafci buu leeyahay cilmi isagu waxaa jira dhib uun la taagan halkaasuu ilaahay ku caddeeyey waa cilmiga sixirka wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum
وعلم أن إبمو يداف لهين كذلك علم الفلسفة علم فلسفة ده الله بيدا مركو قفكو صعدة إلهي ونكسور شيء سنة يوم عقلية دو كلية والركرقة يستعمالها ملحدين تو هذه العصر كان استعمالات قال كاوحين وكارجنا علميين وقيبياي ونسبر بردع كريم إذا مركز سحر كيبو هلكا إلهي حكومي كي برانية إيا كي أديكسن لها إيا كي أتقي لها وتشر حنبارنا ولقد علموا لما اشتراه ما له في الآخرة من خلاق waxay ogaadeen kuwaasi cidda iibsatay qaadata sixirka inaanu aakhira nasiib ku lahayn waxay aayadu xukuntay natiijada sixirka inuu yahay aakhira la'aan goormuu qofku noqdaa waa markaanu iimaan lahayn in iimaankii laga qaaday mar kala cadays mar afraad aayad wala biisa ma ashraw bihi anfusahum law kaanu ya'lamuun mar kale ilaahay ku celiye waxa xumaaday waxay naftooda u iibsadeen haday garanayaan maxaa ku haboonaa tolob dadka waxa ku haboonaa buu ilaahay sheegay wuxuu walaw annahum aamanu wattaqu iimaan ya allah ka cabsi halku imika gaalnimo iyo diin la'aan ka qaateen waxa uu haboonaa iimaan iyo allah ka cabsi haday taa ku dhaqmi lahaayeen iska dayn lahaayeen waxa lamathubatun min indillaahi khayr abaalmarin weey oo ilaahay xaqiisa ka timi ayaa u fiicnaan lahay law kaanuu yaclamuun hadday garanayaan jaahil may garanin jahligu qofkiisa u halaagaa adduunna u halaagaa aakhirana u halaagaa idan sixirka waxaa la yidhaha haddaynu usoo noqonno tacriifkiisa ama tilmaantiisa qodobo dhowr aynu ka sheegayo tobaneeye meelahaas insha allahu si macluumaad guud dadku ay uga qaataan ka haqaafatin caama tacriifkiisa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay wixii qarsoon saxara bimacnaa khafiya wastatara ayaa lagu tilmaamaa oo suxuurta had iyo jeer dee waa raashin qarsoon waqti qarsoon baa suxuurta la cunaa saxar habeenka gelinkiisa dambe qarsoon wey waxaa kaloo lagu tilmaamaa sixirku inuu yahay xaqiiqadoo shayga la weydaariyo saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim kala wareejin dadka la kala wareejiyo saxarahu bimacnaa qofku sidii u socon lahaa ee caadiga ahayd si aan hayn buu ka jahayn karaa inna min albayaani la sixra nebigu wuxuu ihi aftahanimada iyo codkarnimada dadka qayb baa ka mida sixirka qayb ka mida weeye waxaa laga yaabaa waxaad iska aaminsanayd oo aad iskaga noolayd oo aad ku socotay hadduu ku helo qof aan agnaan ahayn ee aftahan oo codkara oo kugu weydiiyo ood waxba ka jawaabi kari weydo aad waxba odhan kari weydo inuu ku dhaa ama wax keen ama waa yahay dheh dabeetana aad tidhaahdo waa yahay miyaanay sixir ahayn waa sixir weeye taasina markaa waxa weeye kala wareejintaana waa loo isticmaalaa xagga sharcigana dee maadaamuu noocyo badan yahay tacriif keliya laguma koobi kara bay dhah oo xadda ama tacriifka adiyo jeer qolada mandiqa ka hadla waxay dhaha maa yaqtadii tasawuruhu tasawur almucarafi aw imtiyaazahu can gayri tacriifku waa inuu noqdaa maanic jaamic mudari wixii la doonayaana waa inay soo wada galaan wixii la diidayna waa inay ka wada baxaan xuduuddiina aan la gelinin oo tacriif iyo aanu isdhex gelin shayga xaddiisa xukunkiisa almuhim maadaamuu qaybo badan leeyahay tacriif laguma soo koobi kara bay leeyihin laakiin waxaa weeyaanuun waxyaabo la isku gungunto wax lagu akhriyo oo kadibna qofka dabeecaddiisa iyo jawigiisa iyo falagana lala eegto oo qofka wax lagu yeeleeyo sidii nebigaba loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabo la akhriyo weeyo iyo wax la shidshido oo shayaadiin la soo dejiyo qofka loo adeegsado arrimahaas u noqdaa tacriifkiisa intaan ku dhaaf lahu adraar qaybtiisa labaad waxa weeye dhibaatooyin buu leeyahay dhibaatooyinkaasi qaar diiniyana way leeyihiin qaar caafimaadna way leeyihiin qaar bulshana way leeyihiin dhibaatooyinka diinigu sixirku leeyahay waxaa ka mid ah dee qofkii waa caqiide la'aan ma diin baa hadhay kol haddii lagu gaaloobay sixirkii qofkii waa ku gaaloobaya xukumkiisa alxukm intaasoo aayadood baynu ka arkaynaa intaasoo kelmadoodoo aayadda ka mid ah marka jumhuuru lculamaa culimada intooda badani waxay isla waafaqsan yihiin qofku hadduu sixirka caadaysto ama ku shaqaysto ama u taguu ku noqnoqdo kii sixirka samaynayay rag iyo dumar mid kastaada inuu diinta islaamka kaga baxayo wanacuudu billah hadduu diinta islaamka ka baxana naagtii way gaalowday ninkiina wuu gaaloobay dalaaqi furiin wixii ay isku qabeen caqadkii iyo nikaaxina wuu buray
tusaale naag baa istiri ninkaaga kaa miyaraystay isjeclaysiiyo howga soo sug waxay idhahdaan imika markay midi miyaraysta waxay idhahdaan heedhe miyuu dee maad farsamaysid bay idhahdaan maad farsamaysid macnaheedu waxa wey maad sixirtid khalaas iyadiina way ka furantay xaaraan buu ku waxaynayaa kanay islahayd soo qabso oo miyarada ka soo qabso waa tusaale miyaraduna dee way samayn kartaa taweyne way samayn kartaa waa meelaha mushkiladuhu ay ka yimaadaan bay ka mid waa ka qofkiiba way furantayba xaaraan buu kula kulmaya waa tusaale idan markaa waa dararka ugu weyne caqiide ahaan sixirku waxa weeye tacdiimu saxarati wa ahli shacwana halkii ilaahay laga weyneyn lahaabaa waxaa la weyneynayaa sixir leh iyo khuraafaad leh waxaa adraartiisa ka mida tarku almalaadi alxaq alladii yajib allujuu'u ilayh markay dhibaata dhacdo ilaahii u weynaa la magan geli lahaa ayaa la weydaartay waa cibaadatu shayaaiin ilaa shaydaanka la caabudo sixir ma hirgalo ka loo fulinayo iyo kan kale labaduba wakhtiyadu u hirgalaya waa inu shaydaanka caabudaa horta shaydaankuna kama yeelaya inu wax la riixo jeeroo diinta uu ka soo baxo marka wasaa'ilka iyo wadooyinka la maraya waa xaaraan iyo gaalnimo ayaa la soo maraa kaadi lagu maydho kitaabka qur-aankoo lagu joogsado dumarka dhiigooda caadada wax lagu qoro aayada lagu qoro waa gaalnimo iyo qofkii oo is soo qaawiya ilaa heerkaa markuu soo gaadho ayaa uu wax la qabtaa uu dee jeebka ku rito kamahali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiءu mink ilaa heerkaa markuu la gaadho adraartiisa ama dhibaatooyinkiisa caafimaad waxaa ka mida dee kolley qofka xanuun waa soo gaadhaya jidhka ah sidii nebigaba ku dhacday calayhi salaatu wasalaam dumarka uurka lahoo kale mararka qaarkood ilmuhu ka soo dhacaya humuumta iyo qumuumta iyo qalaqa qofka nafsiyaadkiisii waxaa isbedelaya culays baa la saaraya sida aayaddu sheegtay laba qof oo isjeclaa baa lagu kala eraya laba qof oo isnabcaana waa la isku dhufanaya adraartaasoo dhan waa kuwa xagga caafimaad marar badanna waynu aragnaa qofkoo dhakhtar loo geeyo oo shaybaadh badan lagu sameeyo qalab badan la geliyo la ydhaa waxba kuma hayaan caadi baat marka waa marad ruuxiya astaamaha ay ka mid tahay mar haddii waxba la ydhaa dhakhtarku uu kuhaa waxba waan waa caadi in cudur xagga ruuxda uu haysto oo u baahan in qur-aan iyo lagu cilaajiyo diin lagu daweeyo adraartiisa ijtimaacigaa waxaa ka mid a alcunfu اlusari wasdiyaad shukuuk wahadmu اlbuyuut guryaha waxyaabaha haddana casrigan aynu joogno ugu badana lagu dumiye wey dadka isjecel iyo dadka isku wanaagsan iyo dadka guryaha xaasleyda waxyaabaha lagu dumiye wey adraarta uu leeyahay waxaa ka mid a in bulshada dhexdeeda cadaawad laga abuuro shisheeyahana loogu nugleeyo weerarka ummadaha lagu sameeyo waxaa ka mida ugu adagka cuquusha caqliga laga duulo dii gaaladu ay caruurteennii caqliga kaga duulaanoo qaswulfikrigii maskaxdii laga qabsado oo waxay iyagu doonayaanu laga dhaadhiciyo marka wax la barayo qayb kalena balwadii lagu daldalo oo jaadkii iyo sigaarkii iyo badeecadii iyo buurigii ay liqliqaan oonay caadiba ahayn maray marqaansan yihiin iyo maray xaraaraysan yihiin iyo maray qaadiraysan yihiin inay noqdaan qayb kalena sixirlayaashii laga qaban waayo ay wada qataaraan bal adigu dadkaasi siday dalka u wadayaan ay ugu noolaanayaan dowladda wadi maayaan cibaadana wadi maayaan aqoonna wadi maayaan iyaguna wada joogi maayaan waa inay helaan markaa saddexda cudur ee caqliga ku duulayada ciddii kala dagaalami lahayd allah u sakhira dadka waxaa ka mid ah ithaarat lfawaaxish waxyaabaha sinada iyo xaaraanta iyo ceebaha iyo dulmiga lagu faafiyo ayuu ka mid yahay sixirku mid baa sine ku diidaysa uu sirxayaa wuu ka sinaysanaya mid baa xoolihiisii u diidaya uu sirxayaa wuu ka qaadanaya sidaas waa wax badan oo dhibaato ah waxyaabaha ugu dhib badan ee bulshooyinka lagu weeraro ayaa uu ka mid yahay idan marka xalku waa maxay xalku waxa weeye ugu horeyn alwiqaaya ka hortag sida looga hortegaya waxa weeye dadka ficilkan ku kacaya inaan la eeganine dee dadku way baaba'ayaanoo ma sii wada joogi karaan horumarna ma samaynayaane wacyigelinna dadka lagu sameeyey ogaadaan waxaan wuxuu yahay oo aanay khayr u qaadanin iyo karaamo iyo welinimo oo dadku ay ku qancaan waxaan inuu xaaraan yahay isla markaana ficilkiina uu la socdaayo maamulka meeshaa ka jira ee muslimka ahi marka magacaa la sheego la soo qabto
oo dabeetana xeer ciqaabeedkii uu mutaystay la mariyo halkaa waddada qoorta loo caseeyo sidii cumar binu khadaab way sugantay qisadaas cumar binu khadaab wakhtigiisii baa loo sheegay sixirlayaaloo amar buu bixiyo wuxuu yihi uqtuluu kulla saaxirin wa saaxira sixirle kasta oo ninaya mid kastoo naagaba dila 3 baanu dilay buu leeyahay ninka ka warramaya maalintaa taasina waa mid uu ku joogsan karo taxun bay ku alla taqaana dadka iimaan laawayaasha had iyo jeer waxa kamid ah isaguna wax la yiraahdo cilaaj qofkii waxaan oo kale lagu arko inuu qofku cilaaj sax la mariyo waa musiibo weyn haddii sixir lagu sameeyo sixir la kale loo geeyo miyaanay saymo oodan ahayn sixir la ayaa wax u qabtay sixir la kalena waa loo geeyay ama isagii u baaba lagu celiyo la yiri kafur uu ku sii ribdhow yoomkiisa u sii soconayay laaluushkiisa marka waa in cilaaj sax cilaajka saxayna waxa weeye quraanka kariimka ah oo markaas qofka lagula dadaalo cid taqwo laho alla ka cabsi loo ilaahay si wanaagsan ugu baridana loo geeyo oo aqoontii amaanadii labadaba leh habka loo daweynayaana uu noqdo hab sharciga waafaqsan oo khilaafsanayn uu noqdo oo khulwadii iyo xadgudubkii iyo cawradii iyo wixii la iska ilaaliyo isla markaana qofka laftiisa caalij nafsaka binafsik la baraa qofku inuu naftiisa daweeyo oo naftiisa uu ku daweeyo oo la baraa waxaan isaga sida adkaarta la akhristay iyo tahaaradii iyo sida loo cibaadaystay kullama qofka ugu wanaagsan loo cilaajiyo waxay mar kasta oo faralka uu aad u badiyo inuu guto sunnayaashana aad u badiyo tahaarada iyo aadaabtana aad u laasimo macsiyada iyo dambigana iska ilaaliyo salaatul leylka uu badiyo iyo soomka dhikriga ilaahay adkaaru sabaaxi wal masaa cilaajkiisu soo degdegayaan marka qofkii inuu isaguna isdaweeyo sida fiican loo daweeyo hadigii nabigaana inoogu filan calayhi salaatu wasalaam oo isaga laftiisu wuxuu akhriyay qul a'uudiyahay qul wallahi suuratu faatiha waxyaaba lagu daweynaya waxa kamida hadii qofka ilaahay uu ogeysiyo ama cid kale ay ugu riyooto in isagii la soo saaro wixii xunka ha la kala furo oo la kala fakiyo waxyaabaha soo dhan baa kulay cilaajka noqonaya laakiin sax ma aha cid khuraafaad la in loo geeyo sixir layaashii ugu bedelaysa inay daaqada ka soo galaan oo rawxaan iyo jiman iyo dariiqa xaraan in leeyahay waxba lagu daweynaya uu ku sii adka way sii degayaan goodhoona markay ku raagaan la furfuri kari maayo idan waxaynu leenahay yaan la cabsanin oo la firdhan laba aragtiyood baa labaduba khalada qolo tiraahda sixir wax la yiraahdo jiraba aqlaaniinta casrigan ay nool lahay sixirku wax jiraba ma aha oo intanoo aayadood iyaba dafiraya oo diidaya iyo qolo kale oo wixii dhaqaaqa boodhanaya wasirxana labada waqti bayna dalika sabiilan haduu duri ku dhaco wuxuu leeyahay wallahi maanta waa ribdana waa la isoo eegay kana sidana waxa xaqiiqa ilaad hesho caalim aqoon u leh waxaan wax kaaga sheego xaaladaadu way iska caadi wax dhibina ma jiro kuna bushaarayso qul la yusibana illa ma kataba Allah lana nagu dhici maayo waxaan ilaahay noo qorin mid muuqda khalqiga iyo mid qarsoon midna waxba kuma yeeli kara hadii aanu ilaahay ku qadarin ilaahayna waa inaad hoos gasho iyo kalaamkiisa kariimka iyo ducada nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaan ku bushaaraysanaynaa walaa iflihu saahiru haythu ata dadka waxa caadaysta iyo kuwa u sameeya guul darrun bay u dambeeya guul darro ayaa ku dhacda iyo iyadoo oo la arki doono shayaatiintu isticmaalay inay dileen isaga iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa ay kaga kawsiyeen ay kharaabiyeen wallahu subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان